Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sanadka jadiidka iyo waxaa isbedeli doona ama kusoo biiri doona ee supermarketyada waaweyn sida Lidlka iyo Aldiga iyo Reevaha, Edika iyo Kauflandka. Bisha soo socota laga bilaabo waxa lagu soo daray qaybta qaboojiyaha casiiraadka caagadaha ku jira ee ahayn marka hore faantka aan ahayn in hadda faant laga dhigay oo dib loo celin doono marka uu qofku ka dhamaysto casiirkiisa. Waxa kale oo lagu soo daray 2022 in dukaamanka waaweyn sida Lidlka ama Aldiyada la hordhigi doono Impfzentrum la iska tallaalo. Plastic tuutihii laga iibsan jiray kaasaha agtiisa alaabta lagu qaadanayay ayaa laga joojiyay sida dukaamanka Reeve iyo Aldiga ee leemis metalka lagu qaadan jiray. Cuntada waqtigii ay dhacayeen ay soo dhowdahay ee awal la daadin jiray amba taafalka la siin jiray ayaa hadda waxa lagu soo kordhiyay in qiimo dhimis 30% laga dhigo kadibna uu qofka kundihii uu direct uga iibsan karo dukaanka iyadoo qiimihii awal lagu iibin jiray laga naaqusayo qofka. Milk productiga sida yogurtiga iyo caanaha waxa lagu soo dejin doonaa calaamad cadaynaysa lo'da caanaha laga soo lisay xaaladda ay ku nooshahay say u nooshahay taasna waxa ay raali gelin u tahay xuquuqda kuwan u dooda xuquuqda xayawaanka. Sidoo kale waxa aad Aldi iyo Lidl ku celin kartaa haddii uu handi kaa jabay amba computer halkii aad gidaafada ku tuuri lahayd amaba qashinka aad ku dari lahayd waxa ay kaa qaadanayaan wixii kaa jabay handi amba computer ha ahaado. Isbedelada sanadka soo socda kuwiisi ugu horeeyay videogan ayaan ku soo koobnay insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wixii dambe ee soo cusboonaadana insha Allah halkaanad kala soconaysiin.